رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنن الله تبارك وتعالى قوانين إلهي وآدمها وكل رقمه كتابك إلهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شرحه. ما أنت وحنا قانون دونا درس جلبات، أما قانون كلبات وحويان قانون الهدى والضلال، قانونك يا بعض النمل. إلهي كتابك إلهي بنوشة سبحانه وتعالى وحول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إلى هذا وحي نوغو شيغا سبحانه قل إن هدى الله هو الهدى. حنونك إلهي وآدمها أوصيه أيوم باء حنونك ربط إلهي رالي قليا. وإلهي سبحانه وتعالى مركب بشرك وأبوري وأبيه النبي آدم وأبوري حلكي النبي لماذا اللو ديبي دينت إلهي إنو قاطو آدمها waxa dul saaran dhulka oo dhan dadku walaabo bay noqdeen qaar qaatay hanuunka ilaahay oo yiri samiicna wa ata'na maqalnay waanu ateecnay waanu hanuunna mu'miniin bay noqdeen iyo qaar diiday oo yiri samiicna wa asayna maqalnay nabi inuu jiro maqalnay ilaahay inuu jiro maqalnay hase haatee waanu diidnay dadku waa labada kooxda saddexaad koox qiimo leh ma aha way jiraan afka waxay ka yiraahdaan muslimiin baa u nahay uurkana waa ku gaalo waa munaafiqiinta uurku gaalku isagu adduunka qiimo kuma leh waana kuwa ugu dhib badan ee muslimiinta ugu dhibta badan hase ahaatee taariikhda bashariyada aadamuhu waa labada hanuun iyo baadinimo hanuunkaasna waa waxyi iyo diin iyo kitaab iyo sunna iyo taacad kana waa diinta ilaahay oo laga jeesto oo la dagaalamo ilaahay oo aflagaadiyo maxamed oo aflagaadiyo culimada iyo diinta iyo ahlu diinta oo wax laga sheego waa labada jabhadood ilaa intaynu ilaahay la kulmaynana labada jabhadood banu jabhad saddexaad maxay toolin jirto sida awgeed ilaahay wuxuu leeyahay huda allahi huwa alislam qul innal huda qul inna huda allahi huwa alhuda hanuunka ilaahay wuxuu yiri huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa diin alhaq نبي محمد إلهي واكي رسول كيسا وسوديبي هنون يدين تنبطأ وإسلام كأه هالكلمة جو كتابك القرآن كإلهي مركو تلمامين سبحانه وتعالى وحاوير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهنون سبنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قرآن كنا وهنون كتابك إلهينا وهنون دينة إسلام كنا وهنون قانون كاسوحي نو شريع عد الله لا عد ديدا هنون كا إلهي إن أي قارته قابك إلهي ولا رقم إلهي بقى نو شريع إلهي يحيي سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وآيات الآية بدل ومن يشاقق قفك الديدة الرسول وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى مركو هنونك وعداري الدين إلهي وعداري حكمك الله وعداري قفك الديدة ويتبع غير سبيل المؤمنين الراعة مؤمنين جد كوذا جد أنا هين سبحان الله ويتبع غير سبيل المؤمنين بمعنى قال جد كوذا راعب إلهي سبحانه قفك انت لي ماذا نوله ما تولى ماشو أجيستي بعد أجيديا ونصله جهنم يوم القيامة جهنم انقلياب إلهي وساءت مصيرا بل إلهي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدقيا هنونك إلهي إنو كجيست إلهي وحير ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير حداد راعدت هوذوذا قال وحو هيا وهو أما الربا هينو رسوقلو أما السياسة الظلمية هينو رسوقلو ولا إن اتبعت رسول الله إلهي باكله
haddaad raacdid hawada gaalada haddaad raacdid bacda aladii jaa'aka min alcilmi markaan kuu waxyooday kadib maa laka min allaahi min weliy ilaahay subxaanahu wa tacaala hiil kuuma hayo walaa nasiir meesha nebi maxamed ilaahay uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam hiilna kuuma ihi kuuna gargaari maayo haddaad gaal jidkiis raacdid ood ka tegtid waxyigaan kugu soo dhaadhiciyey innaga ilaahay muxuu inagu odhan subxaanahu wa tacaala aayad kale ilaahay wuxuu lahaa walain ittabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaa'aka min alcilmi innaka idan min aldaalimiin haddaad raacdid hawadooda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam gaalo waxyigan kugu soo dhaadhiciyey kadib dhaalimiintaad ka mid tahay xaashaa lilaahi nebi maxamed dhaalimiinta inuu ka mid noqdo laakiin innagaa inalala hadlaya haddaad gaalo ka dhigataan tusaale haddaad gaalo hormood ka dhigataan dhaqankooda haddaad raacdaan ood isku eekaysiisaan maalinba sarwaalka meesha ka soo jeexaanna ka daloolisaan timaha meeshay ka gaabiyaanna aad ka gaabisaan gabadha hadba diraca meeshay ka faydaanna aad ka faydaan oo tidhahda halkaasaan isku eekaysin haddaad la timaadaan walain ittabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi innaka idan min aldaalimiin buu ilahay leh subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay inoo sheego qaanuunkan ku jira haddaan waxyiga raacno cabsi werwer walbahaar shaki intaba ilaahay inuu inaga qaadayo muxuu leehy subxaanah qulna hbiطuu minha jamiican faima ya'tiyannakum minii hudan faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa aabbahee nebi aadam buu ilaahay la hadlaya aabbaha bani aadamka oo dhan wuxuu yidhi qulna hbiطuu jannada ka baxa faima ya'tiyannakum minii hudan markaad adduunka tagtaan idin dayn maaye e hanuunkaygaan idinsoo raacsiin faman tabica hudaaya hanuunkaa ka raaca ee waxyiga ilaahay qaata falaa khawfun calayhim yaanay baqin walaa hum yaxzanuun yaanay murugoonin baqina maysid murugoonna maysid maxaa laga baqayaa ibnu kaiir raxmatullaahi caleyh tafsiirkiisa aayaddaa wuxuu yidhi falaa khawfun calayhim fii maa yastaqbiluunahu fi alaakhira oo markaad hanuunka ilaahay raacdid werwer kuma hayo talow aakhira ilahay halkee buu dhigi talow xabaasha maxaa igu dhici talow janno ma geli talow naar ma geli waxaasoo dhan ka baqi maysid hanuunka ilaahay baad raacdeen hooyadan caasha radiallaahu canha ayuu nebi maxamed ku yidhi sala allahu calayh wasalam qofka jeclaada la kulanka ilaahay ilaahay la kulankiisa wuu jeclaadaa qofka naca la kulanka ilaahayna ilaahay kulankiisa waa naca hooyadan caashaa waxaa tidhi ma geeri baad ka hadlaysaa bay tihi nebi maxamed sala allahu calayh haddaad geeri ka hadlayso waan wada necebnahay bay tihi geerida nina geerida ma jeclo markaasuu yidhi maya caashaa sidaa maaha qofka mu'minka ah ee camal wanaagsan adduunka la yimid marka loo sheego geeri baa jirta waxa uu og yahay wixii uu aakhiro sii dhigtay sida akawuntka adduunka lacagaha aad sii dhigatoo kale khayrka halkaa ku yaalaad og tahayo ilaahay inaanu ku hoojinaynin waa aayaddan falaa khawfun calayhim ka berbayso beritood ilaah naxariis badan ood intaasoo dhan caabudaysay oonad maalinna ku caasiyin oo markay macsiyadu ay kaa timidda markaaba aad toobad keentay qalbigaagu caafimaad qabo shirki iyo bidca midkoodna aanu ku jirin ilaah taa aad ku caabudayso muxuu cadaabtaada ku fali maa yafcal illaahu bicadaabikum suurat الnisa maxaan idinku fali biyu idin cadaabo cadaabtiina maxaan ku fali biyu allah subxaanahu wa tacala kaasna waa qaanuun qaanuun kale waxaa weeye طayib اlcaysh aakhirana werwer ma leh adduunka intaan ku nool nahayna waxaad ku noolaanaysaa nolol qabow eeg hadda nolol qabow qofka ka jeesta dikriga ilaahayna nolol kulul buu gelayaa arrinkaa aad u dhegayso waa sunna kowniya aayadaha qur-aankana dhegayso qofka adduunkan intuu ku noolaya hanuunka ilaahay qaata kitaabka ilahay sunnada nebi maxamed sala allahu calayh aayadu qur-aanku waxay leeyihin nolol qabow buu ku noolaadaa qofka ka jeestaana nolol kulul noloshaa qabow innaga maskaxdeenna waxaa ku soo degdegaya markaaba taajirnimo guri cad oo dheer gaadhiyo waaweyn habla cadcad haba iska madoobayn hadday doonaan waa iska oraane wax noocaasoo midhan baa kugu soo degdegaya markaaba markaasaad leedahay wallaahi oo bilaahi kaash baan baashii ku doonaya markaad maqashid nolol kululna waxaad leedahay waa cidhiidhi shaqo la'aan wax la'aan dhibaato markaasaa laga yaaba qaar inay hoosta yidhahdaan weliba soo kuwan gaaladuba sida fiican u nool maha dhul qabow guryo waaweyn gaadhiyo waaweyn bangiyadu u buuxa soo kuwa haddana gaalada amaha annaga muslimiin waxuma hayne waa shaytaankaa nafta laabtu afuufaya shaytaanku markaasa wuxuu ku leeyahay asaga waa gaal kuba qurux badan laga daaya baashoo
إلهينا وغفور رحيم اسكنوا لنا الماذيريا آيات أقول إلهي سبحانه لقيسو قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وقانونك هوري كدع دعا دونك جنة كدع دعا وأيو وآدم عليه السلام حاسكيسي حواء يا إبليس صدح راسها جنة جوجدي قابيل يا هابيل ولما يدرن ده لما إسقبا أو إبليس باحظ لغي نبي آدم عليه السلام أو له لي وجيت كي عنيد ده ومرضي كدع ذي ويقاوناجن لما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ويبلابان وكي عورودي موقتين يستران أيها هي لغيست horta jannada ka dega horta adduun wax la yiraahdo ladii sameeyay adduunka taga adiga ubadkaagu waa cadow buu ibliis ku yahay ilaa isaguna ubad buu leeyahay ibliis shayaatiinta la idin sheego iyo maradada iyo waxan waa ubadkii ibliis day innaguna ubadkii nabi aadan baynu nahay labadii jannada isku qabtay ubadkoodun baynu adduunkana waynu isku haysanaa aayada quraanka dhageysan ku xidhi qulna waxaan idhi ilaahay ihbitu ka dega minha jannada jamiican gabigiinuba israaca بعضكم لبعض عدو وحال قريبو يري إلما آدم إيا إلما إبليس عدوين إسكويهين فإما يأتينكم مني هدى هنون بان إذن كدب كيني كتابا صدره إيا مبي آن صدره هنون كوالا بدا أيان إذن كدب كيني بيري لغيسو فمن تبع هدايا هنون كان صدرك الراعة فلا يضل بعض من نغضو ولا يشقى نرشنكم هوغو الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري قفك كجيست حسكي يذكر إلهي فإن له معيشة ضنكا وحاولي يهبي الله نولل كل ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة يسقى إندلا أيان صوصا ربي الله سبحانه وهذا الحلي قال ربي لما حشرتني أعمى ربه محاذا آخره إن دلاني صوصاتي وقد كنت بصيرا أدوك سولي أركي فقصي الله قولنا سبحانه كذلك قد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إني سأقول صدرك آياته إلهي صدقي كجي استمر كان عندها لايد أن ما تنقل عند تريا أود يوم القيامة آدي الجوتي كذلك إلهي سبحانه وتعالى هنوك سواء شيء مركا آن أرتيد قف معصي إلهي كدو سوغن قل إله أقول صلاة أقول صون أقول دين أقول ربي عايو ما لها كن مركاسة وتفرعوسا أو حتى أدوك يسكودو بدعسية شلمات كيس هليا قاري ورقوة بسكوتا نبر كيسو قروح بدنيا نبر كيسو تاغيا جك ها بحال الله سا كبسوك إلهي سيادنا إلهي حتى إلهي هذا